munaasabad lagu shaacinaya musharaxiinta kale Cabdiraxmaan Ismaaciil Cali oo u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland iyo Siciid Jaamac Cali oo u tartamaya golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Murashaxiintan ayaa iska sharaxay xisbiga talada dalka ee Kulmiye, waxaana munaasabadooda shaacinta musharaxnimada ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye iyo afayeenka xisbiga Kulmiye, aqoon-yahan, dhalinyaro, haween iyo madax dhaqameed. Ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay madax dhaqameedka beesha labada murashax iyo murashaxiin u tanaasulay labadan musharax iyo haween, waxaana ka mid ah hadaladoodii. oday reerka ah oo hogaaminaya laba murashax oo xisbiga Kulmiye oon marka horeba ahayn ka soo sharaxaya oo ah baarlamaanka oo uu yahay Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami iyo deegaanka oo uu yahay Siciid Jaamac Cali. waxaan xisbigana ugu mahadnaqaynaa aqbalaada ay naga aqbaleen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guddida xisbiga ee naga aqbashay. waxaan wadnaa golihii baarlamaanka Cabdiraxmaan Cadami iyo Siciid Jaamac Cali cilmi. annagu halkan amaan uma baahnin, reerkani waa afartii tiire magaalada tiir ka mid ah, markaa waan soo dhawaynayaa. waxaan soo ahaa musharax 5 sano. waqtigaa waxaa dhacaysay musharax waqtigaa golaha wakiilada la qabanayay waxay ahayd 2015 waxaana doorashadu dhacaysay bishii 7 2015 horta maanta aan u baa sharaxnaan lahaa waqtigaa hadday dhici lahayd, laakiin way dhacday oo waqtigaa iga badiyey. waxaan se u tanaasulay nimanka odayaasha xagga fadhiya maadaama uu noqday kursigu mid hal qof oo kaliya qaadaya. waxaan gartay anuu Cabdiraxiin ahaan inaan tanaasulo oo tolkay aan duca ka qaato in adeerkayna aan dhiso. soo dhawaada saaxadda siyaasadda. horta waanu idin soo dhawaynaynaa. waxaan idin leeyahay Allah idinku guuleeyo. waxaan halkan ka cadaynaynaa marka horeba beesha reer Axmed inay xisbiga Kulmiye ahayd oo xoog iyo muruq iyo maalba aan hore u gelinay, horena uga tirsanayn. iminkana aanu u soo sharaxnay haddaanu beesha reer Axmed nahay annaga oo dhammaystiran oo ma garanaysaa cid kale oo na dhinac cararaysa aanay jirin. labadaa xildhibaan ee aanu u keennay xisbiga aanu u soo sharaxnay Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami iyo Siciid Jaamac Cali cilmi. guddidii ka soo shaqaysay ee noo soo saartay labadaana waxaan leeyahay iyaguna waxay naga mudan yihiin karaamo iyo maamuus. waxaan leeyahay waxaad noo soo saarteen wax Soomaaliland u qalma. sharafino maanta anagoo reer dhan oo wada socda oo xisbigoodii jooga. xisbiga qariib kuma nihin, xisbigu waa xisbigeennii baan leeyahay, waa xisbigii inagu aynu soo samaynay, waa xisbigii tacabka badan inaga soo galay. maanta waxaan ku faraxsanahay in anigoo magacaygu Mukhtaar Cabdi Quule yahay dadkii doonayay ee u cararayay golaha deegaanka ah maanta inaan u tanaasulo oo aan noqdo qofka dhisa in adeerka Siciid Jaamac. waxaanu leenahay war waxaanu nahay anagu raggii meeshan joogi jiray ee xusbiga dawladda hoose ayaa baarlamaanka labadaba ahaan jiray magaaladan muhiimkeedii. marka halkaasaanu doonaynaa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay murashaxiinta Cabdiraxmaan Cadami, Siciid Jaamac iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye Axmed Cabdi Dheere, waxaana ka mid ah hadaladoodii. go'aansaday oo aan u kacay inaan wax ka qabto una shaqeeyo magaaladii Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. ilaahay idamkii markaan arkay baahida iyo duruufta jirta ayaan u banbaxay anigoo og inaad garabkiina iyo ducadiinaba aan ku shaqaynayo inaan ilaahay idamkii aan wax ka qabto caasimaddii aan ku dhashay aan ku koray. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan u mahadnaqayaa xisbiga Kulmiye iyo hoggaankiisa oo fursad loo siiyey inaan wax ugu qabanno caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin. sida hadalladiina aan ka maqlaayay wax weyn baa iga filaysaan
haddaan noqdo amba aan ku guulaysto xubin golaha baarlamaanka somalilan waxba idinku ballan qaadi maayo waayo waxaan ka baqayaa inay hadhow been noqoto oo wixii ka soo bixi kari waayo laakiin waxaan ku dadaalayaa waxa iga filaysaan inaan fulin doono amba iga arki doontaan haddii la yidhaa ugu dambayn mahadnaqii badnaayo xusbiga loo mahadnaqay madaxweynaha oo guddoomiyaha xusbiga ah mudane muuse biixi cabdi ku-xigeenka mudane maxamed kaahin axmed ku-xigeenka axmed cabdidheere madaxda kale ee joogta afhayeenku ka midiyey oo halkan fadhiya cabdinaasir aad baan ugu mahadnaqaya deegaanka halkan fadhiya waxaan u malaynayaa inaan cid loo sheegaynin qofka hargeysa garanaya wuu garanayaa markay tahay meelaha soomaalidu degto oo dhan waa reer magaciisu yaallo weeyaan waa deegaamo hadday NFD tahay hadday reserve area tahay hadday Somaliland tahay iyo Soomaaliyaba taariikh dheer bay ku leeyihiin ilbaxnimada iyo magaalo dhisida magaaladan weyn aynu aragno wadadkii asaasi bay ka mid yihiin Axmed Ismaaciil Cabdi telefishinka caalamiga RTN Hargeysa